السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن دمان ولا لها كحران جرانك داعة تيوب waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono qiso cajiib ah mudana in lagu cibra qaato qisadani waxay dhacday xilligii Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu aynu gudagalin muuqaalkan waxaynu ka codsanaynaa hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato inaad subscribe saarto gambalelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo galino halkan sidoo kale aad like nagu dhiirigeliso muuqaalkan aad la wadaagto asxaabtaada dhanka iyo comment-gana waxa una soo dhawaada muuqaalka oo dhan ninba u yimid Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ninkii wuxuu watay wiil yar Cumar ayaa yiri waxaan arkay maanta wax yaab leh waligii ma arag nin cunugiisa sidaan ugu ogyahay markaasuu ninkii yiri Cumarow ma ogtahay wiilkan in ay hooyadiisa dhashay iyada umeed ah markaasuu Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu intuu fadhiga bedelay ayuu ku yiri ii sheeg sidee u dhashay iyada umeed ah ninkii wuxuu yiri wiilkan isagoo caloosha hooyadiisa ku jira ayaa safar isoo galay markaasay hooyadii tiri halkee inoogu tagaysaa anoo xaamilo ah oo aan dhali rabo haddaba markaan albaabka guriga ka baxay ayaan caloosheeda gacanteeda saaray oo aan ku iri ilaahow adigan kugu amaaneystay wiilkayga intaasi kadib safarkii ayaan aaday haddaba markaan safarkii ka soo laabtay ayaa imid guriga oo xiran kadib dariskii ayaa ii sheegay inay xaaskayga dhimatay kadibna waxay ii keeneen casho anoo cashadii cunaya ayaa waxaan arkay qiic meel ka baxaya kolkaas ayaan dadkii weydiiyay waxay ii sheegeen inuu qiiqaas yahay qabriga xaaskayga iyaga oo waliba ii sheegaya maalintii la aasay ilaa iminka inuu qiiqaasi ka socdo qabrigeeda wallaahi inaan dadka oo dhan ugu aqoon badanahay in ay ahayd qof taqiyad saalixad soom badan salaad badan oo wixii xun reebta wixii sanna dadka farta ayay ahayd kolkaas ayaan dadkii ku yiri soo baxa ii raaca aan soo arkay kolkaas ayaan dadkii ku yiri soo baxa oo ii raaca aan soo arkay waan soo baxnay markaan qabriga imaanay ayaan ku bilaabnay inaan qodno markaan qodnay mise waxaan aragnay xaaskii oo meed ah oo fadhisa iyo wiilkii oo ag fadhiya kadib ayaan maqlay cod leh kii amaanada ilaahay u dhiibtay oo qaado amaanadaada kadib waan soo baxay waxaan u imid culimada waxay ii sheegeen culimadu waxay yiraahdeen hadduu dhihi lahaa ilaahow wiilkayga iyo hooyadiisa ayaan kugu amaaneystay iyada oo noolba u imaan lahaa laakiin qadarta Allah ayuu ahaa in uusan sidaa dhihin oo waqtigeed ayaa intaa ku ekaa qisadani waxayna baraysaa in Allah subhanahu wa ta'ala wixii la weydiisto oo qalbi wanaagsan u weydiista in la helayo ay inoogu eg tahay warbixintii aan idinku talagalay muuqaalkiisa xiga inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah hana ka iloowina channelkan inaad saartaan subscribe gambalelkana aad furataan like-tan aad inoogu dhiirigelisaan muuqaalkana aad asxaabtiina la wadaagtaan sidoo kale wixii fikrad aad inoo haysana aad inoogu reebto dhanka hoose